kulanti wanaagsan dhammaantiin daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah booliska dalka Canada oo su'aalo weydiinaya nin baabuur dad ku jiirsiiyay magaalada Toronto shilkaas oo 10 qof ay ku dhinteen laba wiil oo Soomaali oo lagu dilay gobolka Ohio ee dalka Maraykanka kuwaas oo maanta lagu aasiyo magaalada Columbus sidoo kale xubintii ciyaarihii iyo waliba qodobo kale ayaa daawan doontaan iyaga aan ku bilownay booliska dalka Canada ayaa su'aalo weydiinaya nin maalintii shalay dad gaari ku jiirsiiyay magaalada Toronto iyadoo shilkaasi ay ku dhinteen 10 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 15 kale faahfaahinta wararkii ugu dambeeyay ee shilkaasi iyo waliba baaritaanka ciidamada dalkaasi Canada ee arrintaasi waxay noo haya wariyahayaga magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji haya Xuseen shirwac waxaa xusid mudan in maanta wadadu ay xiran tahay oo falka shalay uu ka dhacay sidoo kalena booliisku ay wadaan baaritaan iyagoo markaa dadkii arrinku arkay iyo dadka ka agdhow wadadaasi ka codsanaya in wixii macluumaad ah markaa ay la wadaagaan haddii wax yar aan dib ugu laabanno dhacdadu sida ay u dhacday abbaara kooda iyo barkii duhurnimo shalay xilligan magaaladan Toronto ayaa dabcan nin booliisku magaciisu ay ku sheegeen Alec Minasia oo 25 jir ah oo markaas sitay gaari kira ah ayaa waxa uu jiirsiiyay dad dhabaha marayay markaasoo halkaas ay ku dhinteen 10 qof 16 kalena dabcan ay ku dhaawacmeen booliisku baaritaanka hordhaca ah marka ay soo bandhigeen waxa ay ku sheegeen in imika aysan ogeyn waxa ku qasbay in Alec uu markaa falkaasi fuliyo maysan la xiriirin ururada argagixisada ama falka inuu ahaa mid argagixiso madaxda magaalada Toronto iyo guud ahaan gobolkan Ontario oo warbaahinta la hadlay si wada jira waxa ay sheegeen in iyagoo isku duuban arrinku marka ay wajahayaan iyagoo kaashanaya dawladda federaalka madaxa gobolkan Ontario Catherine Wayne waxa ay tilmaantay in ay la xiriirtay ra'iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau markaana uu u muujiyay taageero dhinac walba in gobolkan Ontario dabcan uu garab taagan yahay sidoo kale duqa magaalada Toronto John Tory waxa uu amaanay sida booliisku marka ay uga jawaabeen falkan sidoo kalena waxa uu dadka ka codsaday inaysan tagin goobta marka falku uu ka dhacay oo baaritaan uu ka socon doono isla markaana dabcan goobta ay xirnaan doonto ilaa iyo hadda ma jirto xog rasmi ah oo booliisku ay ku sheegeen falka Alec waxa uu u geystay laakiin waxa socda baaritaan ma la hubo inay tahay mid la xiriirta dhibaato dhanka maskaxda haysay amaba mid fal argagixisa laakiin maxkamadda iyo ka soo hormuuqan doona marka ayna cadaan doontaa waxa ku kalifay arrinkan dadka ayaa marka siyaabo kala duwan uga walwalaya iyadoo arrimahan oo kale dalalka qaar ay ka dhaceen oo Canada inta badan aan lagu aqoon in qof gaari inuu iska soo qaato haddana jiirsiyo dadka dhabaha maraya marka wixii macluumaad dabcan soo kordhana marka booliisku ayaa warbaahinta la wadaagi doona aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji laba wiil oo Soomaali ah oo maalintii Sabtidii lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa maanta magaaladaasi lagu aasaya faafaynta warkaasi waxay noo haya wariyahayaga Columbus Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadam haya Cabdikaafi cabdi xakiin labadan wiil oo Soomaalida ah waxa la dilay habeenkii ayaa soo galeysay axad sabtiduna ay baxaysay ilaa iyo hadda booliisku ma cadaynin mana shaacinin magacyadooda iyo sidoo kale da'dooda sidoo kale booliisku qiyaas uu bixiyay wuxuu sheegay wiilashan Soomaalidu inay yihiin da'da 20aad ilaa iyo 30aad wiilashani ma la yaqaano cidda dishay iyo sababta loo dilay sidoo kale cabdi xakiin waxa xusid mudan in magaaladani Columbus Ohio sanadkii la soo dhaafay ee 17 lagu dilay 9 wiil oo Soomaali ah isla markaasina aan la aqoonin ciddii dishay iyo sababtii loo dilay wiilashan Soomaalida ah ee la dilay habeenkii axadda ee lagu dilay magaalada Columbus Ohio ayaa la xabaali doonaa maanta oo ah Talaado sidoo kale cabdi xakiin wiilashan Soomaalida ee la dilay mid kamida wuxuu ahaa nin caruur iyo xaas leh sida la sheegay mid kamidana waxa la ii sheegay inuu ka soo laabtay Afrika oo ku maqnaa muddo barashada diinta Islaamka oo halkaas uu aaday haddana uu ku sugnaa gobolkaani Ohio qaasatan magaalada Columbus muddo yar isla markaasina uu dhintay balse natiijada saxda ah ama waxa saxda ah waxa la ogaan doonaa Allah uu naxariistay markii wiilashan aaskooda maanta la soo gabagabeeyo isla markaasina ay booliisku soo saaraan warbixintooda hordhaca ah iyo cidda lagu tuhmayay inay dileen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdikaafi Yuusuf Aadam maxkamad ku taala dalka Indonesia ayaa 15 sano xariga ku xukuntay
guddoomiyihii hore baarlamaanka dalkaasi oo lagu helay inuu xaday lacag gaadhaysa 170 milyan oo dollar. dacwadoogayaasha ayaa sheegay in Setia Nofanto oo sidoo kale hore u ahaa guddoomiyihii xisbiga Golkar uu ka mid ahaa saraakiil dhowr ah oo dhacay hanti fara badan kaasi oo si elektaroonig ah dadka loogu samayn jiray kaarka aqoonsiga. barnaamijkaasi ayaa ku kacay 440 milyan oo dollar. ugu dambeyntiina dhakhaatiir ku sugan magaalada Baltimore ee duleedka magaalada tan Washington ayaa ku guuleystay qalliin ay ugu talaaleen xubinta taranka nin hore ugu tirsanaan jiray ciidamada Mareykanka. qalliinka lagu sameeyey ayaa ahaa xubintiisa taranka oo ku waayay qarax ka dhacay dalka Afghanistan. qalliinkan oo ka dhacay cusbitaalka John Hopkins ayaa dhakhaatiirtu ay sheegeen in xubinta taranka ee ninka ay u talaaleen uu ku deeqay qof hore u dhintay. dhakhaatiirta ayaa sheegay in ninkan uu imika soo bogsanayo lana filayo inuu toddobaadkan gudihiisa cusbitaalka laga saaro. waxaa hore loo tabiyey in lagu guulaystay 3 qalliin oo xubintan taranka ragga lagu sameeyey kuwaas oo 2 ay ka dhaceen dalka Koonfur Afrika halka midka kalena lagu sameeyey gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka. haatanna waa xubintii ciyaari waxaynu hayaa wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Mascade. haya Maxamuud. aad baad u mahadsan tahay haddii aan ku bilaabo kulan adag oo habeenkii xalay ahaa ka dhacay waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Newcastle United. labadan kooxood awood ahaan isu dhow isla markaasina dhibco sida u badan aan kala sarreynin weliba isku dhibco ahaa markii ay ciyaartu bilaabanaysay ayaa waxaa dhacday qaybtii hore inay ciyaartu kusoo gabagabowday eber iyo eber hase haatee qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday ciyaaryahan Theo Walcott oo kooxda dhowaantan ku soo biiray kana yimid Arsenal ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta Everton oo iyadu halkaasi 3 dhibcood ka xaabsatay sidaasina guuldarro dhabarka u saartay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. maantana kulan aad u xiiso badan oo ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano ayaa waxaa iskaga hor iman doona kooxaha kubadda cagta ee Roma iyo Liverpool. ciyaartan ayaa waxay ka dhacaysaa gegida Anfield ee magaalada Liverpool waxayna kooxda Roma garoonkaasi iman doontaa iyadoo ku faraxsan guushii wanaagsanayd ee ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Barcelona halka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku faraxsan tahay inuu garoonka u soo galayo isagoo caafimaad qaba ciyaaryahan Mohamed Salah oo habeenkii Axadda ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee waddanka Ingiriiska oo isagu sanadkan 41 gool dhaliyay. waxa uu Mohamed Salah u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Roma ka hor sanadkan xilli ciyaareedkan socda weeyaane intaanu ku soo biirin kooxda kubadda cagta ee Liverpool. isaga iyo saaxiibadiisii hore ayaana isherdin doona. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa deydayaysa cidii ay ku bedeli lahayd macallinkii rugcadaaga ee Arsenal Arsene Wenger oo sheegay inuu ciyaaraha ka fariisanayo xilli ciyaareedkani markuu soo gabagababo. macallimiin door ayaa la hadal haya waxaana safka hore ku jira Luis Enrique oo kooxda Barcelona muddo koox ah isla markaasina koob badan ku guuleystay. sidoo kale wararkii ugu dambeeyay haatan waxa ay sheegayaan in ninka maamula kooxda Arsenal Ivan Gazidis uu jeclaan lahaa in uu kooxda coach u noqdo ciyaaryahankii hore kabtanka waa kooxda Arsenal ee Mikel Arteta oo isagu xilli ciyaareedkan kooxda Manchester City kula guuleysanaya horyaalka waddanka Ingiriiska. Arteta waa macallinka labaad ee kooxda Manchester City waana nin kooxda Arsenal taageerayaashoodu ay xushmad badan u hayaan. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamuud. guud ahaanna waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii qubanaha maanta tan iyo intaynu barnaamijka mid lamada isugu iman doono waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.